بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أردي سود وهذا مقعي عبد الله محمود آدم ذاكر ما أنتوا حان قادرين مادة بيزنس شابتر كي استعداد inflation of Somali waxa lagu yiraahdaa sicir barar ama qiimo kororkaasi wuxuu ku imaanayaa in shayga qiimihiisii uu si gradual kor u kaco tusaale shayga qiimihiisii inuu ka tago hadduu $1 ahaa $2 $3 $4 $5 $6 $7 saa u socdo okay baaliyada inflation oo shayga qiimihiisii uu kororka ku socdo marka it's a continuous rise in general price level of goods and services waa in si joogto ah oo qiimaha guud ee ashiyada iyo serviceska oo kor u kaco waxayna sababtaa and it causes fall in the value of money inflation wuxuu sababaa lacagta wadankaas inay hoos u dhac ku yimaado oo lacagtii way qiimo beelaysaa wadanka haduu inflation ka dhaco sida aan aragnay shilinka Soomaaliga sidoo ahaa xilligii la sameeyay iyo hadeer waxa aragnaa inuu hadeer dhiito waxa ku dhacayna waa inflation okay waxa kaloo hoos u dhigaa purchasing power awoodda wax gadashada hadii lacagtu qiimo beesho waxa hoos u dhacaya qofku inuu wax iibsado shalay lacagtii ku goysay inaad ku iibsatid mobile ama book ama qalin ama wax kale maanta kuma goyso marka uu inflation ku dhaco oo lacagtaas qiimo dhac ayaa ku imaanaya inflation ku waxa uu maraa levels afar level ayaan arkaynaa afarta level waxa uu horeeyay mid la yiraahdo moderate inflation waa qiimo koror ama sicirka oo kor u kaca wax ka yar 10% hadii lacagta qiimaheedu ama hadii alaabta qiimaheedu kor u kaco 10% wax ka yar xoreeyna waxa jira levelka la yiraahdo moderate inflation ayaa jira it happens when the price rise by less than 10% per annum hadii qiimaha shaygu uu kor u kaco 10% kor u kaco sanadkiiba shay $100 ahaa haduu 110 noqdo macna 10% uu kor u kacayo marka waxa horeynaa waxa ku jira wadankaas moderate inflation ku dib badan kuma hayo dhaqaalaha wadanka bal waxa la yiraahdaa mararka qaar kood ugu fiican yahay iyadoo laga fiirinayo in dadka ganacsatada ah ay faa'iido ka helaan maadaama shayaash wax yar ay ku darsameen macaamiisha waxa gadanayna dib badan kuma u hayo oo wax yar ba shay ku darsamay okay levelka labaad waxa la yiraahdaa global inflation waa inflation sicir barar kaasoo qiimaha shaygu uu kor u kacay 30% ilaa iyo 30% kor u kici karaa 400% kor u kici karaa 999% kor u kici karaa ilaa kun waxay yiraahdaan hadii qiimuhu shaygu uu kor u kaco 20% ilaa iyo 1000% haduu kor u kaco waxa la yiraahdaa xaaladaas oo kale la yiraahdaa global inflation ayaa la yiraahdaa xaaladan oo kale wadanka way u daran tahay lacagtu waa qiimo beesha alaabtu qaali ay noqotaa awood wixii iibsiyo aad bay hoos ugu dhacdaa balse wili waxa jira leeflo isaga ka sii daran levelka saddexaad waxa la yiraahdaa hyperinflation ku waa markii lacagtii qiimo dhaca ugu sareysa meesha marayso way taasoo keenta in lacagtii iyo waraaqihii magaalada yeelay ay isku mid ay noqdaan waa markii qiimaha shaygu uu kor u kaco wax ka badan 1000% kii ugu horeeyay haddaan soo fiirino wuxuu ahaa less than 10% ayuu ahaa kii labaadna wuxuu ahaa 20% ilaa iyo 100% more than haday noqoto 1000% waxa la yiraahdaa hyperinflation ayaa la yiraahdaa meelaha adduunka ugu daran oo ka dhacay hyperinflation waxa la yiraahdaa waxa kamid ah laba wadan oo Germany iyo Zimbabwe ah oo midna uu ka dhacay 2004 midna uu ka dhacay 1930 ayuu ka dhacay hyperinflation markii ay ku dhacdo lacagtu ama qiimo bararku ama sicir bararku halka uu marayo lacagtu waxay noqotaa mid aan wax value lahayn stagflation baa ugu dambeeya stagflation waa xaaladda ay kulmaan qiimo barar halka maraya aad u sareeya iyo wax soo saarkii oo hoos u dhaca hadii wax soo saarku hoos u dhacana unemployment-ga ayaa meesha ka soo baxda oo ah in dadkii wax soo saarayay ay shaqo la'aan ay ku dhacdo marka stagflation ugu dambeeya weeyaan qiimo waxa isku darsamaya lacagtii oo qiimo beeshay iyo wax soo saar la'aan wadanku marka khatar ugu jira inuu depression ku dhaco okay waxa kale oo jira wax la yiraahdo deflation kii hore waxa uu ahaa aan soo baranay inflation buu ahaa kani waa deflation
deflation waxa uu kaga duwan yahay inflationka waa cagsigiisa uu ka soo horjeeda inflation wuxuu ahaa qiimo kor siyaada in qiimuhu siyaada ayuu ahaa deflationna waa reverse waa maxay waa in qiimihii hoos u dhaco weeye shayga qiimihiisa si joogto ah inuu hoos ugu dhaco haddii uu ahaa 7 6 5 gaagaal buu socdaa 4 3 2 1 marka la yiraahdo is reverse to sustain decline in the price of level of goods and services in qiimihii shayga uu si gradual ah hoos ugu dhaco weeye wuxuu ka soo horjeedaa inflationka oo ahaa in qiimaha shaygu kor u socdo okay marka deflation iyo inflation ardaygu waa inuu kala yaqaan inflation waxaan ku sheegnay in qiimihii kor u socdo deflation waa maxay in qiimihii uu hoos u socdo waxa jira la yiraahdo inflationary gap iyo deflationary gap inflationary gap waxa la yiraahdaa wax soo saarka la soo saarayo iyo dalabka la dalbanayo marka dalabka uu badan yahay haddii wuxuu leeyahay accuracy when the demand for goods and services is higher than the production haddii wadanka wax soo saarka laga soo saarayo uu yahay 50,000 oo tan haduu yahay 50,000 oo tan haduu yahay dadku waxay dalbanayaan uu yahay 100,000 oo tan haduu yahay halka waxaan ka aragnaa in dimaankii la dalbanayay iyo wax soo saarkii la soo saarayay ay badan tahay dimaankii marka waxa arkaynaa halkaas wax ka dhacay wax la yiraahdo deflationary gap dadkii waxay dalbanayeen ayaa aad u far badan wadankii wixii yaalan oo yar yahay tusaale hadii wadanka Soomaaliya laga soo saaro 50,000 oo shay dadkuna ay dalbanayaan 100,000 oo shay waxa badan dalabkii waa badan marka halka inflation ma ka imaanayo inflationary gap ayaa la yiraahdaa waa markii wax soo saarka iyo dalabku uu badan yahay deflationary gap taas lidkeeda weeye waa maxay hadii wax soo saarka wadanku yahay 50,000 oo shay 50,000 oo tan la soo saaray laakiin dadku ay dalbanayaan 25,000 oo tan ay dalbanayaan waxa aragnaa dhimaanka ayaa yar wax soo saarka ayaa badan xaaladda noocaas kale waxa la yiraahdaa deflationary gap ayaa la yiraahdaa deflationary gap accuracy when the total spending and the consumption is less than gross national product wax soo saarkii iyo dalabkii ayaa yar dadku wax yar bay dalbanayaan wadankan wax badan baa laga soo saaray surplus baa jidha way macnaheedu wax badan ayaa wadanka yaala tii horan lid bay ku tahay waa maxay wadanka waxa laga soo saaray uu yar yahay dadku waxay dalbanayaan aad buu far badan yahay dadku waxay dalbanayaan 100,000 oo shay wadankan waxa laga soo saaray 50,000 oo shay marka halka waxa imaanaysa in dalabkii uu aad u far badan yahay wax soo saarkiina uu yar yahay halka marka inflation ma ka dhacaya saan gaar 10 ma ka arki doono hadduu dhimaanku bato inflation ayaa la ka yimaada okay cost inflation maxaa sababa arday maxaa inflation ka sababa inflation waxa sababa dhowr qodob kan ugu horeeya waxa la yiraahdaa demand pull inflation waa cause koowaad demand pull inflation wuxuu ku yimaadaa in shayga dalabkooda uu bato haddii magaalada shay ama ashyaa kala duwan dalabkooda uu bato qiimahooda kor buu kacaysaa u naqaan sida caadiga normalka qalinkan gacanta ku hayo haddii dalabkiisu bato qofka haya uu qaaliyeysiinaya maxaa yeelay wuxuu og yahay in aad looga gadanayo laakiin haddii dalabkiisu yaraado qofka hayaay ma qaaliyeysiinayo maxaa yeelay laga gadan maayo wuxuu ku qasban yahay inuu raqiisiyo si alaabta loo gato marka demand pull inflation waxa la yiraahdaa haddii shayga dalabkiisu uu qaaliyo bato barisiisuna waa qaaliyoobaya but fear this inflation which is created by the increase in demand waxa sababa dhimaanka oo bata dhimaanka waa dhimaanka for goods and services in country wadanka alaabtiisa haddii aad loo dalbado waxay keenaysaa qiimo kor ay keen this means taa waxa laga wadaa demand for goods and services cities the supply available in the existing price macnaha weeyaan dhimaanka meesha ka jira iyo supply-ga meesha ka jira waxa aad u fara badan dhimaanka ayaa u fara badan hadda ila fiirisaan sawirka meesha ku sawiran arday sawirka hadda ila fiirisaan anna halkan aan ku sawiro mar kale waxa inoo muuqda supply iyo demand oo equilibrium jooga halka waa supply halkan waa demand halkan equilibrium geeway halkaas waa equilibrium price halkan waa equilibrium quantity haddii aad fiirisaan waxaan idhahnay demand pull inflation waxa sababa dhimaanka oo bata haddii uu dhimaankii siyaado bal fiiri hadduu dhimaankii halka dhimaan 1 buu ahaa haddii aan sabino dhimaan 2 priceski maxaa ku dhacay halka price 1 buu ahaa halka waxa noo soo fulmaya price 2 halkan waxa noo soo fulmaya quantity 2 waxaan aragnaa haddii dhimaanku haddii equilibriumka marka hore la joogay uu ahaa $4 oo kale tusaale kor buu u kacayaa waxa uu noqonayaa $5 maxaa keenay inuu alaabta shayga qiimihiisa $5 keen maxaa keenay dhimaanku siyaada haddii uu dhimaanku sii siyaado price-ku ma sii siyaadaya price 3 ayaa samaysmaya oo ah $6 haddii uu dhimaanku sii siyaado uu sii siyaado as long as uu dhimaankaasi sii socdo
waxaan arkaynaa in braceskuna ay kor u sii socdaan mar waxa la yiraahdaa demand pull inflation haddii shayga qiimihiisu uu siyaado si automatically ah haddii shayga dalabkiisu siyaado si automatically waxa uu siyaadaya waxa la yiraahdo bracekiisa oo waxa weeyaan dadka hayaayay waxay og yihiin dalab inay u haystaan shaygiina way qaaliyeynayaan cost of demand pull inflation maxaa demand pull inflation oo kuwan maxaa sababa increase in money supply haddii dad money supply ugu baahan tahay haddii lacagta suuq ku jira ay aad far badan tahay oo qof kasta uu lacag heli karo ay ma taqaanaa dhimanku badanaya qof hadduu lacag goorma dadku wax dalbadaan markay lacag haystaan ay dadku dalbadaan increase in total expenditure haddii kharashaadku bato kharashaadku waa maxay in aad wax loo dalbanayo dadku wax gadanayaan wax kala iibsanayaan iyo waxyaalo midka general shortage of goods and services haddii alaabtu yaraato salahan maanta qalinkan oo kale ku yaraaday dadka qalinkan u baahan oo dhan hal mar bay soo gadanayaan halka waxa ka dhacaya dhimaanka inuu bato kadibna dhimaanka haduu bato dadka hayaayay waxay oranayaan maanta ka faa'iideysta alaabta way qaaliyeynayaan ay hayaan expectation of price increase in la filayo in qiimuhu uu kici doono haddii la filayo qiimuhu uu kici doono dalabka la badinaya haddii dalabka la badiyana waxa iibsamaya ma taqaanaa priceska dadka hayay kor ay u siyaadayaan tusaale taa u hooseyso kale haddii maanta shaygu yahay $1 birina la filayo inuu $2 noqdo ama $3 noqdo dadka magaalada joogaya dhan shaygan haday u baahan yihiin maanta ay soo iibsanayaan maxaa yeelay maanta waa $1 birina $3 noqonaya iyagoo $3 ka cararaya ayay waxay sameynayaan waxa la yiraahdo in maanta soo iibsadaan oo $1 ka soo baxaan dadkii hayay oo alaabta gadayay waxa ay maadaama dalabku ugu soo batay shaygan way si automatically u qaaliyeynayaan iyagoo $2 ama $3 ka dhigaya saadaraad waxa dhacaya in shaygii uu ku dhaco wax la yiraahdo qiimo kor uu ku dhaco ayaa ka dhacaysa sawaha suliya waxa kii koowaad wuxuu ahaa demand pull inflation waxa kaloo sababa cost push inflation wax la yiraahdo cost push inflation ama waxa la yiraahdo supply inflation cost push inflation waxa uu sababaa in qiimo kor alaabta uu ku yimaado ama sicir raba dhaco waa in factors of production waxa la yiraahdo ama cost of production ka kor u kacaan alaabta shirkadu alaabta ay soo saardo hadii ay qaali ku soo baxdo suuq alaab ku geynaysa tusaale shirkadda waxa sameysay miisaska iyo qalimaanta oo kale sameysay ama miisaska sameysay hadii miisku uu alaab qaaliya laga soo miiska maxaa raw material u ah tusaale waxa uu alwaaxda iyo masaamirta iyo rijiyo hadii suuqa qofka faryaameystaha ah uu alaabtaas qaali ku soo gato waxa dhacaysa in isaguna soo saaro miis qaaliya kadibna uu suuqa ku geeyo shay miisa oo qaali ah oo ma taqaana intiisa hore ka badan maxaa miiskan qaaliyeeyay miiskan waxa qaaliyeeyay shayga laga sameeyay oo ninka faryaameystaha uu ka sameeyay ayaa qaali ahaa oo suuqa hore uga soo gatay marka isaguna suuqa alaab haduu alaab raqiis soo gadan lahaa sana suuqa alaabta wuxuu ku geyn lahaa si alaab ma taqaana miis raqiis ayuu geyn lahaa marka waxa la yiraahdaa this inflation is mainly created by the rise in cost of production shayga cost of production haduu qaaliyoobo wax soo bixi doonana way qaaliyoobayaan cost of production waa maxay shayga waxa laga sameeyo kharashkiisa weey marka muxuu keenayaa leading to persistent increase in the commodity prices tusaale sababihiisa maxaa kamid ah cost of push inflation maxaa sababa increase in wage and salaries haddii qofka alaabta soo saara dadka u shaqeeya uu kharashaad badan siiyo mushaharaad badan siiyo lacag badan ay ka qaataan waxa ay sameynayaan shaqada ay u qabanayaan wixii ay soo saaraan qaali buu noqonaya tusaale haddii aan dhahno miis ayaa la soo saaray ama kursi tusaale ayaa la soo saaray kursigaas alwaax waxa ka baxay $2 masaamirna $1 baa ku baxay qofka shaqeynayna wuxuu qaatay $3 ayuu qaatay marka isku darno waa $6 mid kale aan fiirino alwaax waxa ku baxay $2 miiski masaamirtina $1 laakiin qofkii shaqeynaya $5 qaatay marka isku darno 5 ku dar waa 8 shaygan $8 buu ku soo baxay shaygan wuxuu ku soo baxay $6 maxaa kala qaliyay waxa kala baxay kana qofkii shaqeynayay wage wuxuu qaatay $5 kana waxa uu qaatay $3 saadaraad isku suuqa isku cost ku imaan maya kani wuxuu imaanaya isoo qaaliya kan wuxuu imaanaya isoo kan dhaama ayuu imaanaya saasa wali waxa ugu sii haray in profitka lagu daro $2 ku dar $10 kana $2 ku dar kana $8 buu suuqa ku imaanaya kana $10 buu ku imaanaya waa wax kala fog markii la eego ma taqaana suuqa intay ku imaanaya marka waxa la yiraahdaa cost push inflation waxa sabab increase in wage and salaries hadii siyaada marka hore $3 bay qaadanayaan hadda $5 bay qaadanayaan islaamiiski suuq mar wuxuu ku soo baxaya $8 marna wuxuu ku soo baxaya $6 hadii faa'iido lagu sii daro midna 10 buu ku soo baxaya midna 8 buu ku soo baxaya so difference baa aragna halka charging high prices to increase in profit hadii la isla yahay qiimaha shayga ma taqaana faa'iido badan laga sameeyo qaaliba isoo qaaliya suuqa la Kenya marka hadii
faa'iidada mataqaanaa la badiyo tusaale faa'iidadaas kala hadaan $2 ka dhigata $5 ka dhigo kale de miiska $16 ayuu ku imaanaya halkaas waxa kaloo sababi kara increase in the price of input production input production ku hadii qaali yihiin shayga alaabta laga sameeyo hadii waxa mataqaanaa meesha laga soo gadanaya qaali tahay isna qaali igu soo baxay sawirka ardayga ila fiiriya sawirka hadaa fiirisaan halka waxa inoo sawiraan dhimaankii halkan waxa inoo sawiraan ka supply kan waa dhimaankii halkan equilibrium ma joogan halka waa equilibrium price halkan waa equilibrium quantity haday supply-gu haday dhimaanku haduu bato ayaan sawiray haddana maadaama aan leeyahay cost push inflation waxa la supply inflation supply-ga ayaan badinaya kala supply 1 buu ahaa kan waxaan ka dhigaynaa supply 2 ayaan bixinaa supply 2 marka aan shift gareeyay oo aan shift ku sameeyay waxaan arkaa in price 1 buu kaas ahaa inuu samaysan price 2 price 1 tusaale wuxuu ahaa $5 kan wuxuu noqon karaa intee 10 oo kale noqon doona uu kac kor buu kac maxaa keenay supply-ga oo yaraaday supply-gu haduu yaraado qiimuhu kor ayuu u kacaya supply-gana waxa yaran kara in alaabta shayga qofka laga soo siinayo uu mataqaana qaali ku noqoto qofku wax soo saarka marka uu yareeyo marka halka ku sawiran important inflation waa ka ugu dambeeya important inflation waxa la yiraahdaa wadan uu inflation ka dhacay in alaab ka soo iibsatid hadii wadan inflation ka jiro hadaa alaab ka soo iibsatid alaab qaali ah ku imaanaysa adna marka saameyn buu kugu yeelanaya this inflation which results from trading imported goods that originated from country experience high inflation level wadan inflation ka jiro Soomaaliya oo kale hadii wadan inflation ka soo iibso alaab qaali halka uga imaanaysa maxaa sababa waxa sababa alaabta lagu keenayo oo qaaliga ah hadii wadanka soo gasho waxa dhacaya tusaale ganacsada ayaa wadankan jooga ganacsada kale ayaa yimaaday ganacsadaha wadan kale ka yimaada alaabtiisu waa qaali waxa dhacaysa ganacsadihii localka ah alaabtiisa aad loo dalbado hadii alaabti aad loo dalbado ganacsiga wadankaana oo dhimaanku ku batana waxa dhacaysa inuu alaabti qaaliyeeyo as long as dhimaanka qof uu ku bato alaabta ayuu qaaliyeynaya saasna waxa dhacaysa inuu mataqaana ku sameeyo wax la yiraahdo high price and endless one